abwaan Allah un xaristo isii hadda dhow dhintay oo jigjigi joogay eriyada iyo lacagta iyadoo waxa jirta oo taawiil oo qaaday marka waxaan halkan ka cadeynayaa gabadhaas inay isceebeen eriyadaasna ana iskale maxaa haash sky heestiisa garoobada qalcad walba qalcad ba jawaab ah halkaas ayaa laga dareemayaa marka gabadhan yar way isceebay safankan waa ku fududaatay waxaan leeyahay waa ku garab qabanaynaa oo ku soo saareynaa laakiin fanka sidaas ayada ha ku soo gelin cod islaameed ee duubnaa ee 2017 la duubay maanta inta lala soo fariisto hadda ee 19 ay tahay lala soo fariisto telefishin leeyahay aniga iskale wax ma aragtay isqaadan kara ma ahan heeska aniga iskale gabadhaas heeska aniga iga dhacday waa codkaygi ana heesku waxaan ma aragtay aan u soo saari waay muuqaalkiisa aan dib u celiyay waan ka mashquulay waxaan rabay inaan music aan dib u tumo kadib aan soo saaraan rabay heeska insha Allah taala laakiin waxa ii suurtageli weysay in howlo badan iyo mashquul badan aan galay saas darteed ku faa'iideysatay hadda ma dhihin heeska ninka lahayna ma taqaano la xamiistiina ma taqaano muusikistiina ma taqaano wixii oo dhan waxay tiri way dhinteen marka wax dhinta male dadka way nool yihiin waxaan joogaa magaalada maaragtay Muqdisho waan arkaysan inaan noolahay heeska aniga iskale abwaankii lahaa wuu nool yahay abwaan Nuur Samawade wuu nool yahay waa maaragtay nin caafimaad qaba ninka muusiga tumay waxa oo dhan teenan caafimaad qabanahay dad maaragtay heeska qof aniga loo yaqaanahay inaan ayaan wadani heeskan leeyahay 2017 maarsa waxa la soo dhigay Facebook asigoo ka misoon kadibna maaragtay heeska aniga dib uga ma noqon laakiin waan heestay oo aniga iska lahaa oo talada igu jirtay inaan soo dib u tumo muusigiisa oo aan dib u soo saaro gabadhaan maaragtay haday hees la xadado waa la arki jiray wiligeed dadka heesta waa iska xadan fanaaniinta waa iska qaataan hees laakiin cod maaragtay farxiyo fiska iyo cod maaragtay qadradaan inta soo qaatay meel soo fadhiista ay raahdo anaa iskale wax suurtagal ma aha codkayga xaday ay telefishin la fadhiisatay qof maaragtay maanta yeelayna ma jiro codkiisa in inta la qaato telefishin la fadhiisto maanta day hees galiis qaatay ay soo tumatay waxay sataan maanta hees la xaday ani ugu horeey wiligeeda fanaanid hees laga xadaa laga qaata hees la dhacay maaragtay lama yaabani ani laakiin waxaan la yaabanahay qof codkiisa inta la soo qaatay telefishin la fadhiisto wareysi la bixiyay wax been isku soo aadisay been ay ka sheegtay heeska qisadaas oo dhan una lahayn marka waxaan leeyahay walaalay weydin qaladay gabadhaaseeti aad bay igu gardarootay idinkana waa idinku gardarootay been bay idin sheegtay heeskaas aniga iskale codkaygu waaye waa aniga ayaan wadaniya anaa iskale way axaday telefishinka maaragtay ay ka bixisayna waan u sheegay waxaan dhahay YouTube-ka ka saaraan dhahay waan isla hadalnay wiilasha walaalahay meel walba aad joogtaan aad baan idin jecelahay waad mahadsantihiin iga raali noqda xoogaa waxaan ka xanaaqay codkayga intaan la soo qaatay meel la soo fariistay hees la xaday kama xanaaqin balse qof codkiisa la xadaayo isagoo taagan nool codkiisa war haddii maaragtay cod la xadi karo ma waxa fidaad bisku ma wareeri lahayn 200 oo heesa inta meelaha ka soo aruursada telefishin dadka dhac ka siin lahay kowde xafidaad maaragtay qay isku wareeri lahayd ma jirto marka gabadhan wado cusub eerta inay noo furto dad badan eerta inay isas fan ku soo geyso kowde fanne saas lagu ma noqday waxaan dhihi lahay gabadhaas wixii dhalay ha naga qabsadaan oo waxaan dhihi lahay gabarey shaydaanka iska naar abaayo ma u sheegin wayna cusub tahay wili video ma loo sameeynin intaas oo qof ay soo weydiiyeen qaar YouTube-yada ka raadinaya dhahaystaan hore loo qaado oo maleynayna qofka qaadaha ka seen heestan hore ma loo qaadin waa hees cusub abwaan Allah un xaristo isii hadda dhow dhintay oo jigjigi joogay eriyada iyo lacagta iyadoo waxa jirta oo taawiil oo qaaday Maxamed Absu maal dhaha Absuge Nuno alda oo dhawaan dhintay la maxariista ayaa eriyada ku siiyay eriyada siiyay muusikada xadan marka ata waxa jirta iyadoo wiil uu qaadayo jirto oo laakiin si kale u qaadayo jirto dad badan ay soo weydiiyeen qisadaasna waxay ku dhacday gabru abtu ah isaga abwaan gabru abtu ay ku dhacday alaf anu ii soo dhiibay abbaara hay laakiin mar dhow aan damcay inaan soo qaado marka hees wali video looma sameyn laakiin waa sameeyeen waxaag
marka heesta qisada ma kaaga sheekeeyay abwaanka ay ku imaaday qisada oo iga sheekay gabar abto ku dhacday qisada laakiin qisada ka ku muusi faahfaahino uu ii sheegay wax dhan qisada hada wax kamid ah la wadaagtay qisada waxa waaye gabadha abtii uu ahay wiila qabay 5 caruur oo haysay 5 caruur isagoo u haysa oo naa kale la gursaday naa kale markuu la gursaday gabadhu way masirtay dumar la gursaday masira Soomaaliya wiilka markuu waxay ku raacday hanti la'aan curyaan uu ahay wiil curyaan uu ahay hanti la'aan way ku raacday jacayl ku guursatay waa jacayl indhana mala dhagana mala Soomaaliya alaf markay saas darteed isku guursadeen gabadhii maxay dhaatay tii kale waxay dhahday tanaad qabtaa tan markii waxay tiraan ifur naagta hore u guursatay ifur ay dhahday adoo curyaana ku guursaday 5 caruuran ku haya naagtan fur misani ilmahaaga iyo ani mise naagtan markaas wuxuu dhahay naagtan u go'aya tii dambe oo iyadii 5 caruur u dhashay oo waliba noloshaas adag la soo bartay uu dhahay waaba ka tagay ma bareebo wixii cusub caalanka jecel Soomaa naagta cusbeedo ilmihiisa caruurtiisa ka raacay bis gabadha sidoo ku furay gabadha markuu sidoo ku furay aan abtigeeda u sheegtay arinta abtigeeda abwaan oo hayla u naxariisto bis gabadhi marka nin kala guursado hantiile ninkii markuu ka tagay oo riyaanka ahaa waliba 5 caruur u haysay 5 caruur ba iyo adiga bana kugu jecel oo dhahay nolol raaxo leh oo galiya hadda cidaas dibadda jooga saan jeclahay wuxuu dhahay wax walba ana kugu jecel mid kala dafo dhahay gabadhu furuxu dhaadan ku rabaa markii gabadhii wuxuu dhahay ninkan iska fur ilmahayga adana ku rabo tii kalena wuu furay asaga
hargeysa joogtaa وهاس عصب إن أبوان الله أنحرسته إسي هذا دو دنتي أو جيجي جوجي الرياض اللي عن كتا أيضا وحاجرته أو تاويل وقاعدين محمد أبسو مالها أبسو نونو aldaha oo dhawaan intee la maxaa ayaa ereyada ku siiyay ereyada siiyay muusikada xadan marka ata waxa jirta ayadoo wiil uu qaadaya jirto oo laakiin si kale u qaadaya jirto dad badan ay soo weydiiyeen qisadaasna waxay ku dhacday gabru abtu ah isaga abwaan gabru abtu ay ku dhacday alaf anu ii soo dhiibay abbaara hay laakiin mar dhow aan damcay inaan soo qaado marka hees wali video looma sameyn laakiin waa sameeyeen waxaag marka heesta qisada ma kaaga sheekay abwaanka ay ku imaaday qisada iga sheekay gabadha abtu ku dhacday qisada laakiin qisada ka ku muusi faahfaahino oo ii sheegay wax dhan qisada hada wax kamid ah la wadaagtay qisada waxa waaye gabadha abtu uu ahay wiila qabay 5 caruur oo haysay 5 caruur isagoo u haysa oo naa kale la gursaday naa kale markuu la gursad gabadhu way masirtay dumar la gursad masira Soomaaliya wiilka markuu waxay ku raacday hanti la'aan curyaan uu ahay wiil curyaan uu ahay hanti la'aan way ku raacday jacayl ku gursatay waa jacayl indhana mala dhagana mala Soomaaliya alaf markay saas darteed isku guursadeen gabadhii maxay dhaatay tii kale waxay dhahday tanaad qabtaa tan markii waxay tiraan ifur naagta hore u guursatay ifur ay dhahday adoo curyaana ku guursaday 5 caruuran ku haya naagtan fur misani ilmahaaga iyo ani mise naagtan markaas wuxuu dhahay naagtan u go'aya tii dambe oo iyadii 5 caruur u dhashay oo waliba noloshaas adag la soo bartay uu dhahay waaba ka tagay ma bareebo wixii cusub caalanka jecel sama naagta cusbaado ilmihiisa caruurtiisa ka raacay bis gabadha sidoo ku furay gabadha markuu sidoo ku furay ان abtigeeda u sheegtay arinta abtigeeda abwaan oo hayla un xariisto bis gabadhi marka nin kala guursado hantiile ninkii markuu ka tagay oo riyaanka ahaa waliba 5 caruur u haysay 5 caruur ba iyo adiga bana kugu jecel oo dhay nolol raaxo leh oo galiya hadda cidaas dibadda jooga saan jeclahay wuxuu dhahay wax walba ana kugu jecel mid kala dafo dhay gabadhu furuxu dhaadan ku rabaa markii gabadhi wuxuu dhahay ninkan iska fur ilmahayga adana ku rabo tii kalena wuu furay asaga laba goor oo tan wuu furay tii kalena waa furay asaga kaliya gooni ku soo dhacay cildo kaliya taagan Soomaaliya gabadhi marka nin hanti la guursato iyada ilmeed nolol kala galeen ninka la nooshahay buu dhahay iska soo fur ninkii ninka iska furo dhan ilmahayga mar dama qalad ma ka galaysaan waaye sidii heesto ku soo baxday midka goobi hablaha gabarnimada dhaabsho garoobka ma litay garaalaawo ma furay waa hagaaga heestaas dabcan oo qisadaas xanuunka badan gabadhaasna 5 cunug haysato maxaa ka gal